asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idilhaantiinba khiyaartaan hawada saaxiibaha ku nahayow qodobada warkeena ugu door koronan caawa idinku haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya oo shaaciyey in biyo xidheenka lasoo gebagabeeyo inta aysan bilaaban roobabku dalka suudaan oo arrintaasi ka xanaaqay warna ka soo saaray waxaa sidoo kale su-aal laga weydiiyey ra-isul wasaaraha dalkaasi etoobiya ciidamada deegaanka axmarada ee ku sugan gobolkaasi tigrayga t b l f oo soo bandhigtay ciidamada militariga etoobiya ay ka qabatay maxaa ka soo baxay waddankaasi elitariya kadib uun sharciga ay duldhigeen waddamada yurubiyaanku maxaa sidoo kale ka jira in cabdirashiid janan uu wadahadal kula jiro dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale shirkii afisyooni maxaa ka soo baxay iyo beesha caalamka waanwaanta ay ka dhex wado siyaasiyiinta soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobo kaleoo dheeraad ah ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay barhalli ka noqdo isku soo noqod wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana oo aan ku bilaabee ra-isul wasaaraha dalkaasi etoobiya ayaa soo hor fadhiistay maanta golaha baarlamaanka ee dalkaasi etoobiya ra-isul wasaaraha ayaa khudbad dheer halkaasi ka jeediyey kadibna waxaa su-aalo ka weydiiyey golaha baarlamaanka ee deegaanka halkaasi oo su-aalaha qaarkood sidii la rabay uga jawaabay qaarna uu ka gaabsaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya ayaa warbixintiisa waxa uu kusoo daray in uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha biyo xidheenka dalkaasi etoobiya uu la sheegay biyo xidheenka dalkaasi etoobiya ay rajeynayaan in lasoo gebagabeeyo bishan aan ku jirno gudaheedii balse aan noqon weyday ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay haddii biyo xidheenka lasoo gebagabeyn waayo bishan aan ku jirno gudaheedu in ay khasaarayaan dalkaasi etoobiya uu ku kacaya khasaaro dhan 100 milyan oo dollarka maraykanka kadibna ay noqonaysa in kow laga soo bilaabo sidoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay roobab culus oo ka da-ay gobolka gojaamo ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay in roobabkaasi aysan ahayn roobabkii caadiga ahaa balse ay ahayd roobab ducaa oo isaga uu dalabkiisa ku yimid sida uu sheegtay waxaa sidoo kale uu sheegtay inuu yahay nin barakaysan oo kalba goobta uu safar ku mara ama socdaal ku maro uu roobi ka da-o sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya waxaa su-aal laga weydiiyey ciidamada deegaanka axmarada ee ka howlgalaya gudaha deegaanka tigrayga oo lagu eedeeyey toddobaadkii lasoo dhaafay inay halkaasi ka geysteen xusuuq ka dhan ah bili-aadanimada lana soo bandhigay baraha bulshada muuqaalo muujinaya iyagoo dad shacab oo rayid ah laynaya si arxandaraana u laynaya kala tuuraya dowyo dhaadheer oo qowraarina su-aashaasi ra-iisul wasaaruhu waa uu ka wareegeystay balse waxa uu sheegay in waddanku uu galay dagaal sokeeye dagaalkaasina ay adag tahay in la xaliyo waxaa sidoo kale uu sheegay in uu awoodda la saaro horumarinta dalkaasi aan lagu mashquulin khilaafaadka yar ee gudaha ka jira taasina waxa uu ku sheegay in lasoo afjari doono gudaha dagaalka ka socda gudaha dalkaasi etoobiya khaasatan gobolkaasi tigrayga sidoo kale golaha baarlamaanka qaybo ka mid waxa ay weydiiyeen in ay jiraan tacadiyo ka dhacay gobolkaasi tigrayga oo ay ka geysteen ciidamada militariga dalkaasi etoobiya waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in halkaasi dhibab badani ay ka dhaceen balse aan loo xambaarin karin xukuumaddiisa waxaa sidoo kale uu sheegay ama dembigaasi dusha u saaray in ay ka dambeeyaan ciidamada t b l f ee isku daya in ay kala furfuraan dowladda federaalka ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda federaalka sida uu sheegay sidoo kale dowladda suudaan ayaa warbaahinteedu waxay maanta aada u hadalhaysaa biyo xidheenka ra-isul wasaaraha dalkaas etoobiya uu sheegay in lasoo gebagabeeyo bishan gudaheeda siyaasiyiinta suudaan iyo aqoon-yahanada ayaa hadalhaynta ugu badan ee maanta hayeen waxaa ka mid ah in dowladda etoobiya aysan isku dayin inay samayso biyo xidheenkaasi in ay tallaabo deg dega ka qaado ay kusoo xidhayso biyo xidheenkaasi waxaa sidoo kale aan arrintan mar raba raalli ka ahayn dalkaasi masar oo saameyn weyn ku leh biyo xidheenkaasi haddii dalkaasi etoobiya ay sameeyaan in ay dhammaystiraan biyo xidheenka ka socda dalkooda gudihiisa kaasi oo la xidhiidha webiga niile ay wadaagaan saddexdaasi waddan waa dalka masar iyo dalkaasi suudaan waxaa sidoo kale baraha bulshada aad ku arkeysaa dad ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi masar oo ku dhaliilaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya khudbadiisa aka uu ka horjeediyey golaha baarlamaanka ee uu sheegay in loo guntadaa soo afjaridda biyo xidheenka oo lagu soo afjaraa bishan gudaheeda taasina waxa ay sheegayaan dadka siyaasadda ka faallooda ee waddankaasi masar iyo dalkaasi suudaan in arrintaasi ay u baahan tahay in wadahadal laga galo inta dowladda etoobiya aysan tallaabo qaadin arrintaasi la xidhiidha
dhanka kale ciidamada TPLF ee kula jira dagaalka dowladda federaalka ee ka dagaalama gobolkaasi Tigreega ayaa waxa ay soo bandhigeen ciidamo aad u fara badan oo ay ka qabsadeen dowladda federaalka kuwaasi oo ay ku soo shaaciyeen baraha Facebook ayaa waxaad arkaysaa dhalinyaro aad u fara badan oo ah qabaad rayska militariga dalkaasi Itoobiya oo ku jira dhul xabsi ah oo ciidamada TPLF ay maamulaan. sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa sheegtay horaantii in ay soo afjartay dagaalkii ay kula jirtay maamulkii Tigreega gobolkaasi ka arrimi jiray, balse waxaa beeniyay arrintaasi kadib TPLF marka ay mar walba ama maalin walba soo bandhigayaan ciidamo ay ka qabsadeen dowladda Itoobiya iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn oo ay hantiyeen ay dib ula wareegeen. TPLF ayaa warbaahinteeda waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay inay gebi ahaanba deegaanka ay ka xoreeyaan ciidamada kusoo duulay ee dowladda federaalka ee Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada dalkaasi Eritrea. hadalka ka soo baxay dowladdaasi Eritrea waxaa inoo dulmaraya wariyaheena Cabdi Raxmaan. dowladda dalka Eritrea ayaa si adag uga jawaabtay cunaqabatayntii shalayto ay sheegeen inay midowga Yurub ku soo rogeen. Eritrea ayaa si weyn u cambaaraysay waxay ku tilmaantay go'aanka bahdilka kadib markii midowga Yurub uu cunaqabatayn ku soo rogay xafiiska amniga u qaabilsan dalkaasi arrimo la xidhiidho eedeymo ku saabsan tacadiya ka dhan ah xuquuqda aadanaha. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa waxaa lagu sheegay inaysan aqbalaynin cunaqabataynta waxba kama jiraanka ah ee lagula degdegay. waxay sheegtay in go'aankani la doonayo in lagu dhibaateeyo Eritrea isla markaasina laga leeyahay dana qarsoon oo weli aan la shaacin. midowga Yurub ayaa cunaqabatayn ku soo rogay xafiiska dowladda Eritrea u qaabilsan amniga oo uu ku eedeeyay in uu dambiyo iyo tacadiyo aad u xooggan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu doonayo in xiisad uu ka dhex abuuro Itoobiya iyo Eritrea isla markaasina awoodda dib loogu soo celinayo maamulkii Tigreega wadamada ka riixaya midowga Yurub sida Eritrea ay ku eedeysay. ciidamada Eritrea ayaa waxaa lagu eedeeyay in tacadiya baahsan ay ka geysteen gobolka Tigreega tan iyo markii dagaaladu ay ka qarxeen halkaasi bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. Eritrea ayaa waxaa lagu eedeeyay in ciidamo ay geysay Tigreega si awood looga tuuro TPLF, balse dowladaha Eritrea iyo Itoobiya ayaa labaduba arrintaasi beeniyay inkasta oo maamulka ku meel gaarka ee Abiy Ahmed oo gobolkaasi u magacaabay ay sheegeen in Eritrea ciidamadeedu ay gobolkaasi ku sugan yihiin ayna dhibaatooyin ka geystaan. dhanka iyo Soomaaliya haddii aan u laaxano wararka ka imanaya gobolka Gaza ayaa waxay sheegayaan inuu jiro wada hadal u dhaxeeya dowladda federaalka iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo la doonayo in xal laga gaaro dagaalada ka dhacaya dhawaan gobolkaasi Gaza gaar ahaan degmada Baladxaw. Cabdirashiid Janan oo ay wareysatay laanta BBC ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay jiraan wada hadalka dhex maraya dowladda federaalka iyo isaga, taasina waxa uu ku tilmaamay in ay qasab tahay wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed ugu jirto in laga wada hadlo lagana wada fadhiisto. sidoo kale golaha ama deegaanka uu ka taliyo Cabdirashiid Janan ee uu ka yahay wasiirka amniga ee Jubbaland ayaan wax war-saxaafadeed ka soo saarin arrintaasi. sida la og yahay khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. taasi waxa ay ka dhigan tahay in maamulka Jubbaland ay halkaasi u eg tahay in ay ku kala qaybsan yihiin. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa wuxuu ku sugan yahay caasimadda Muqdisho halkaasi oo la rajaynayo inuu kaga qayb galo shirka dhawaan la rabo in lagu heshiisiyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed kadibna loo kaabagalo sidii doorasho xalaal ah ay dalka uga dhici lahayd. sidoo kale labadii bariya la soo dhaafay halkaasi ayuu shirku ka furmay waxaana shirkaasi hogaaminayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya, balse halkaasi waxaan imanin labada madaxweyne maamul goboleed waa Jubbaland iyo Puntland oo sheegay in aysan abni ahayn halka uu ku sugan yahay madaxweyne Farmaajo ee uu shirka ku qabanayo walow amnigeedu ay sugayaan ciidamada Amisom. si kastaba ha noqotee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa isjiidaya muddooyinkii la soo dhaafay taasoo ay u eg tahay in ay adag tahay in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xalaal ah, taasi oo ku timaada isbedel dowladda waqtigan xaaliga waqtigeedu dhamaaday ka arrimisa gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kale beesha caalamka iyo safaaradda dalka Mareykanku uu ku leeyahay gudaha Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho ayaa isku dayaya in ay ka dhex abuuraan waawaan heshiis madaxda maamul goboleedyada
iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday mudane maxamed cabdilaahi farmaajo. sida la ogyahayba waxaa dib u dhacay shirkii la rabay in uu furmo labadii beri ee lasoo dhaafay, taasi oo iman waayeen labada maamul madaxweyne waa axmed madoobe iyo deni. beesha caalamku waxa ay isku dayeysaa in ay ku riixdo in maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay soo fadhiistaan, kadibna waan halkaasi lagu gaadho heshiis waara oo lagu qabto doorasho ka dhacda gudaha Soomaaliya. balse waxay u eg tahay labada dhinacba inay isku diidan yihiin arrimo la xidhiidha dhinaca siyaasadda iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo ku adkaysanaya in uu isku dayo inuu xoog ku maquuniyo madaxda maamul goboleedka oo ka horreysay isaga waqtigii loo doortay dalkani oo ka soo arriminayay